السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركلة السوري ولا أصحابته أكون سوري وهذا كورس كيني تحنا مايكروسوفت إكسل إنه مقال كي أكوري أكغسو هذا الناي قابك إكسل كلوديiwaangeliyo daily sales عيابها مركز تأيبسو إنه استعمالنا فورمولا أما قاعدة. haddaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa qaabka loo diiwaangeliyo natiijooyinka ama natiijada imtixaanaadka. dabcan haddii aad macallin tahay ama aad xafiis ka shaqaysid iskuul oo kale wax badan ayuu muuqaalkani ka caawin doonaa haddii aad leedahay. haddaba afartan arday ayaynu waxaan u xareynay maadooyin mid walba intuu keenay saddex maado ayaynu xareynay Islamic, Soomaali iyo Arabic. tusaale ayaynu soo qaadanay in afarta arday ay galeen saddex maado qof walbana waxaan u diiwaan gelinay maado kasta inta uu keenay. meeshan cad ee banaana means waxa way qofkaasi maadada ama gelin. maxaa laga rabaa marka waxaan soo saari doonaa totalka ama wadarta guud ee arday kasta uu haysto. totalka wuxuu ka imaan doonaa in la isku daro guud ahaan maadooyinkii loo xareeyay ardaygaas. qodobka labaad soo saari doona waxa way average ama celceliska inuu boqolley u bedelno qofkani totalka uu haysto. waxaan kala soo saari doonaa waxa la yaqaano number of subjects inta maado ee qofkaasi uu galay. halkan baad kala socon doontaa. tusaale qofka hadii saddex maado uu galay waa saddex maado soo qoraa. hadii uu laba galay waa laba soo qoraa. hadii wax galina waa zero soo qoraa. haddaba waxaan ka bilaabi doonaa totalka ama wadarta guud. totalka waxa weeye waa in qiimayaashan ama maadooyinkan ama valueskan loo xareeyay ardayga la isugu geeyo dhamaantood. waanu ka soo hadalnay qaabka wax la isku daro. halkan ayaan imaan doonaa kadib waxaan leenahay equal kadibna waxaan isticmaali doonaa function loo yaqaan maxay sum sum oo ah function inaga caawinaya in aynu sameeyno maxay isku darid oo kale. qaab kale oo fara badanna way jirtay. kadibna qows ayaynu furanaa. qowska inagoo isla qabanana shift iyo 9. kadibna waxaan sameyn karnaa saddex qodob mid waan sameyn karnaa in aan qiimo kasta sheegno column-kiisa iyo row-giisa kadibna aynu isu geyno. waxaan kala sameyn karnaa aynu isticmaalno waxa loo yaqaano click method inaynu ku dhufano qiimaha aan rabno kadibna calaamadii balaas ku xijino ku dhufano ilaa intaan ka dhameeyno. waxaan kala sameyn karnaa maxay inaynu highlight saarno saddexdanba inaynu highlight saarno. tusaale soddonkan ka bilaabanaa waan ku dhufanayna kadibna automatically isaga ayaa inagu soo qoraya row-gi iyo column-kii. column-ku waa maxay waa e, row-guna waa maxay waa 5 waa e5. kadibna waxaan leenahay maxay plus kadibna 20 ka ku jira f5 kadibna plus ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay qiimahan ugu dambeeya isaguna waa maxay waa g5 kadibna qowska ayaynu soo xoreynaa. means waxa weeye sidaan total ku saarno waxaan equal kadibna waxaan isticmaalay function loo yaqaan maxay sum kadibna qows ayaynu furnay kadibna maxaynu ka bilownaa qiimahan ugu horeeya ee 30 oo ku jira maxay column-ka loo yaqaan e iyo loo yaqaan 5 e5 plus oo lagu daray qiimaha labaad oo ah maadada labaad Soomaaliga oo ah f5 oo lagu daray qiimaha ugu dambeeya maadada ugu dambaysa oo Arabic kadibna shift iyo 0 ayaan qowska soo xunay kadibna waxaan leenahay enter. qofkaasi wuxuu haystaa totalka ama wadarta guud haystaa maxay waa 100. sidoo lagu daray 20 waa 50 lagu daray 50 waa 100. average ka badan waxa lagu helaa marka aad soo saartid waa totalka ama wadarta guud oo loo qaybiyay qiimayaashii aad isu soo geysay intay ahaayeen. tusaale ahaan imika saddex maado ayaynu qofka u xareynay oo diiwaan gelinay. waxaan leenahay markaa waa saddex loo qaybiyay maxay totalka waxaan leenahay totalka oo loo qaybiyay maxay saddex. haddii halkan tusaale ahaan kale ay tahay 5 maado waxaan leenahay totalka oo loo qaybiyay maxay 5. okay waxaan leenahay equal kadibna waxaan qori doonaa waxa loo yaqaan maxay average waa maxay waa celceliska xisaabtin boqol loo bedelo kadibna shift iyo 9 ayaan qows ka furnaa kadibna waxaan leenahay totalka oo ku jira maxay h5 oo loo qaybiyay 3 saddexna waa maxay waa maadooyinkii aynu soo geynay inta ay ka koobnaayeen. kadibna qowska ayaynu shift iyo 0 ka xirnaa kadibna waxaan leenahay enter. qofkaas imsoo keenay 33 ayuu keenay. number of subjects waa inta maado ee qofka loo xareeyay. marka inta maado loo xareeyay halkan ayaa laga raadinayaa maadooyinkii la xareeyay baa laga raadinayaa. waxaan leenahay equal kadibna waxaan isticmaali doonaa function loo yaqaan maxay count oo ah means tirin kadibna shift iyo 9 qows ka furnaa
waxaanu highlight saari doonaa maxay intii maado ee aynu isku soo darnay ee qofka aynu u diiwaan gelinay tusaale intii maado ee qofka aynu u xareynay baynu highlight saaraynaa kadibna qowska shift iyo 0 ayaan ka soo xiranaa minis maxaan niri si loo soo saaro qofkan inta maado ee u galay ama loo xareeyay waxaan niri equal kadibna isticmaal function oo loo yaqaan count qows ayaan furnay marka waxaan isticmaalay waxa loo yaqaan cell range oo isticmaalayo waxaan niri waxaad noo eegtaa E5 oo ah maadada ugu horeysa islaamiga iyo maadada ugu dambaysa maxay G5 E5 ilaa G5 inta noo eeg intaas marka la eegaya inta number ama inta qiime ee la geliyay kadibna inta yaalana qofkaas waxa loo xareeyay maxay saddex maado hadii iminka kan oo kale aan dhelino maxaa dhacaya wuxuu noqonayaa maxay laba maado maxay waa kan iyo kan waxa kale oo miina hadii iminka halkan aan 0 gelino 0 wuxuu yaqaan maxay qiime ayuu yaqaanaa marka isaga maadadii waad banaynaysaa si caadi ah waad banaynaysaa symbol okay labadan dadkan kale ee haray sidii waan ku saari karnaa laakiin waxaan sameynaynaa totalka ilaa iyo maxay number of subject inta aan formula ku saarnay ayaan highlight saari doonaa kadibna halkan ayaad qabanaysaa kadibna hoos ayaan jeedinaa waxa leedahay maxay feature kana ama arkan waxa leedahay fill handle ayaa leedahay waxay ku save garanaysaa ama ku ilaalinaysaa waqti iyo time fara badan inuu kaaga baxo maxay xisaabtii ama qaacidadii ka warayaan formula ku saarnay inta kale automatically isaga ayaa inoogu soo saaraya tusaale qofkan laba maado ayaa ka maqan hal maado oo uu galay 86 ayuu keenay waa kan halkii maado symbol qofkan saddexdii waa loo xareeyay hadii iminka kan aan dhelino maxaa dhacaya automatically waxa la leeyahay qofkani laba maado ayuu galay hadii aan kana dhelino waxa la leeyahay qofkani muxuu galay automatically ayuu soo bedelayaa totalkii averagekii iyo maxay iyo number of subjects marka casharkan waa cashar kooban oo aan ku eegnay qaabka loo diiwaan geliyo natiijada imtixaanaadka ee ardayda inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.